aad baa u mahadsantihiin runtii qurbo fog maan tegin dowladahan jaarka ayaan tegey Jabuuti iyo Itoobiya muddona waan ku maqnaa runtii waxaan horey ii dhibi jirin oo aan iminka soo dhibsaday hadal badanna ma hayee ayaa jiro niyow baashii qabyaaladii la oran jiray ayaa aad iyo aad silfiyadeennii iyo joornaaladeennii iyo miidiyaheennii aad iyo aad ugu fara badatay oo gobol walba laga hadlayo oo rag hadlayaan oo dumar hadlayaan oo kolkaa dadkuna inamo dee Somalilandnimadu waxay ku jirtaa dadka goostay ee qaraarka gaadhay inay qabyaaladda iyo Somalilandnimada kala doortaan jiritaanka Somaliland iyo Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku jiraysaa qabyaalad la'aan qowmiyad cusbiyada la abuuray oo la kala galo wixii laga cabanayo oo channelka saxa ah ee asluubaysan loo maro horta runtii anigu tan baaqa aan maanta Jamhuuriyadda Somaliland u tilmaamaya waxa weeye waa inaynu Jamhuuriyadda Somaliland oo gooniya noqonayo inaynu qolooyin noqono ayuun baynu imika dee arrinku inaynu kala doorano ay tahay waxa weeye meelaha la bixinayo dhulka la bixinayo shaqada wasiirana siiya heblayaanu ka baxnay hebel baanu ka baxnay hebel meel saab intaasaan ugu soo arko intaana baan ka jeedinaya waxaad moodaa Somaliland Jamhuuriyaddeennii inay duumayso qabyaaladda laga daayo dadka Jabuuti oo kala sheegtay inaad tagtay waa dowlad Soomaaliyeed oo iyaduna Soomaalida ka mid ah dowladaha ka mid ah sidoo kale waxyaabo badan bay siyaasadda reer Somaliland ka ogtahay dadka reer Jabuuti amba siyaasiyiinta reer Jabuuti markay arkaan hadallada isweydaaranaya ee liitiga isku ah qabyaaladda u badan iyaga laftigooda feedback kaaga soo noqdaan wallahi nimankan hadalkaba yidhi warday sidani waa sidee Jabuuti horta waa dowlad aynaanka isku mid tahay anigu hore reer Jabuuti dhiwitaan ku noqdo meeshaasi meel aynu isku mid nahay oo aynu walaalanahay oo rag nin madaxweyne oo asal haysto oo iyo dalkiisii iyo xukuumaddiisii oo meel la yaab la weeyo la kala dambeeyo innagana aanayna hadime iyo been iyo balaayin ugu la soconay aynu inagu gaabsnahay inkastoo nimanka aad iyo aad ugu bogaadinayo nin ruug cadaadiya oo laga dhigay safiiro loo magacaabay Maxamed Warsame Cali laga dhigay oo aad Jabuuti noo yaqaan halka noo yaqaan siyaasi jirana oo sidee waxba iska bedeli Jabuuti effort badan oo siyaasi ah oo aynu gelinay waliba inta dawladda siiraayo joogtay ma jirto laakiin waa dad ina jecel waa dad ina la mid ah waa dad aynu walaalanahay waa dad ayna kala maadmay waa dad tijaartoodii iyo lacagtoodii iyo xooggoodii baynu ku aaminay xaggaana wixii ay u qabanayaan u qabta oo la yaab ma loo iyagana ciidan bay geeyeen inagana adduun bay inoo keeno waa siinta marka waxaan ka keenay waa inta